Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskana farsamada baabuurta. Waxaan ku guda jirnaa cutubkeena shanaad. Insha Allah waxaan qaadan doonaa casharkiisii afaraad. Waxaan uga hadli doonaa baarista ciladaha. Casharkii saddexaad waxaan kusoo dhiganay ciladaha ku dhaca baabuurta. Casharkan waxaan soo jeedinayaa anigoo Maxamed Xaris Faarax. Wixii jawaab celin waxaan noogu soo celin kartaan emailka shaashadana ka muuqda. Kooraskan waxaa kala socoteen mareegtada Somalism Online Academy. baarista ciladaha inta aadan bilaabin baarista ciladaha waa in aad hubisaa kuwan soo socda. Hubin in gaariga naafta ku jirto, hubin in raasku naafta soo qaadayo, hubin in raasku uu naaftada joogto, hubin in naaftadu soo galayso bombada, hubin in naaftadu ka baxayso bombada, hubin in naaftadu soo baxaysa ay awood leedahay. baarista ciladaha baarista ciladuhu waa hab ama wado loo raaco marka la baarayo cilad, taas oo kuu sahasha in aad si fudud u hesho cilada aad baarayso, dabadeedna aad u xaliso. Haddii aadan aqoon habka loo baaro ciladaha, waxaa dhacaya in aadan helin cilada aad baarayso ama aad weydo ciladiiba aad weydaba. Si qaab qaldan ama aadan u geysan dhibaato hor leh, waa in aad barataa habka cilada loo baaro. baarista ciladuhu waxay leedahay qawaaniin la raaco marka aad cilad baarayso. Qawaaniinta waxaa ka mid ah 1 inaad taqaano shayga aad baarayso, inaad aqoon u leedahay habka loo baaro shaygaas, in aad shaygaas ka baartaa shaqadiisa. Shayga aad baarayso waa in aad u baartaa qayb inaad u baartid. Sidoo kalena baaritaanku waa inaad u kala hormarisaa sida u kala xaq leeyahay. marka koowaad waa inaad shayga baarayso waa inaad taqaano, aqoonna u leedahay habka loo baaro shaygaas. Shaygana waa inaad ka baartid shaqadiisa, qaybna waa inaad u baartid sida u kala xaq leeyahayna waa inaad u baartid. Haddii aad hesho cilad, waa inaad baaritaan ku samaysaa. Cilad haddii hesho waa inaad iyada baaritaan ku samaysaa oo xaqiijisa. Waa in aad baaritaan ku samaysaa in ciladan saameyn ku leedahay shay kale. Sidoo kalena cilada aad hesho inay saameyn shay kale ku leedahay, waa inaad iyadana baaritaan ku samaysaa. Haddii aad hesho cilad, waa in aadan warbixin dhiibin inta aad kasoo afmeerayso. Haddaa cilad heshid, waa inaad soo xaqiijisaa cilada keliya inay jirto ama ciladahaas aad heshay keliya inay jiraan. Waa inaad xaqiijisid markaad soo afmeertid kadib markaasaad warbixin dhiibi kartaa. Waa inaad isticmaashaa mas'uuliyad inta aad baaritaan ku jirto. Baaritaanka intaa ku jirtid waa inaad mas'uuliyad isticmaashaa. Baaritaanka aad samaynayso waa in aad ku samayso ururin si aad u soo koobto ciladaha. Haddii aad cilado badan heshid oo kale, ururin inaad ku samaysid oo aad soo koobtid ciladaha aad heshay marka warbixinta samaynaysid baa laga rabaa. Waa in aad kala saartaa shayga aad baarayso inuu yahay shay wareega iyo shay aan wareegin. Anagu soo sheegnay gaarigu wuxuu ka kooban yahay 3 qayb buu ka kooban yahay: boodiga, caqaayadaha iyo wareegyada. Marka waa inaad kala saartaa shayga midku uu yahay, inuu wareegyada yahay iyo inuu labadii kale yahay. Cilada aad baarayso waa inaad xaqiijiso marka ay imaanayso iyo marka aysan imaaneyn. Taasna waa mid laga rabo. Baaritaanka marka aad samaynayso waa in ay ciladu joogtaa ama ay imaanaysaa. Ciladaha khatarta keeni kara waa in aad ku baartaa qaab taxaddar leh. Ciladaha qaar marka la baaro waxa laga yaabaa inay cilad kale sii keeni karaan. Marka waa inaad qaab taxaddar leh oo ka fiirsi leh u baartid. Inta aad cilada ku guda jirto, waa in aad iska ilaalisaa degdeg iyo sahlasho cilada. Cilada markaa baaraysid wax kastaba ha ahaatee, mid kastaba ha ahaatee, cilad kastaba ha ahaatee, waa inaad sahashan si degdegana aad ku samaynayso, degan oo tartiiba aad cilada ku baartid. Baaritaanka inta aad ku jirto waa inaad iska ilaalisaa baqdin iyo argagax. Baqdin iyo argagaxna waa inaad iska ilaalisaa wax baaris. Badbaado guud. Waa maxay badbaado guud? Badbaado guud waxa weeye sidee looga hortagi karaa dhibaatada ama cilada sidee looga hortagi karaa. Waxa looga hortagi karaa inta aysan dhicin ka hor in laga digtoonaado wax kasta oo aadan aqoon haddii aad ka shaqaynaysid iyo haddii kale. Cilad baa baaraysaa, haddii aad aqoon haddii kale waa inaad si digtoonaan leh, taxaddar leh aad ciladaas ku baartid. Qaybaha matoorada habka loo baaro. Matooradu waxay u qaybsamaan 2 qaybood sida aan hore u soo sharaxnay: matoor naafta ah iyo laba baasiin ah ama petrol ah. Labada petrolka sidaan sheegnay waxay kala ahaayeen
mid carburetor ku shaqeeya iyo mid baasiin ku shaqeeya. Labadaas qaybood waxay ku kala duwan yihiin baaritaankooda ku kala duwan yihiin. Waxaana mid kasta loo baaraa qaabkiis, mid kastana qaabka uu yahay waa loo baaraa. Matoorka batroolka yacni qaybaha batroolka soo maraa laga baaraa sida carburetorkii ilaa yacni waxaa laga baaraa inta shidaalku ka imaanaya. Matoorka naftadana nafsa alxaaja yacni naftadu intay ku imaanaysa wadadii naftada soo maraysa aan hore usoo dhiganay qaybahan shidaalka waxaa laga baaraa isagana. Qaabka loo baaro tusaale hadda soo qaadana qaabka loo baaro matoorka naftada. Baarista naftada waa in aad ka baartaa dhammaan meelaha ay marto, waxaana loo kala baaraa laba qaybood. Naftada ka imaanaysa taangiga ilaa bumbada waxaa loo baaraa habbaa loo baaraa. Naftada ka baxaysa bumbada ilaa bastomadana ayadana hab kale loo baaraa. Yani laba qaybood baa loo kala jabsadaa. Marka anaga soo qaadan qawaaniinta yani waa in shayga baaris qayb u baarta. Marka kan oo kale labadaas qaybood oo kala qaybanaysa taas oo baarsa. Naftada waxay ku kala duwan tahay baasiinka, waxay baasiinka uga duwan tahay waxa laga ilaaliyaa airka. Yani matoorka naftada wuxuu ku shaqeeyaa cabir buu ku shaqeeyaa, marka waxa laga ilaaliyaa waxa la yiraahdo inuu air galo, systemku inuu air galo laga ilaaliyo. Gaari marka aad ka shaqeynayso waa in aad marto sidan soo socota. Gaari marka ka shaqeynayso oo baariso ladka baariso waa inaad martaa wadadan soo socota. Dhig gaariga meel bannaan ah oo siman. Gaariga waa meel bannaan oo siman dhigtaa. Waa in aad demisaa gaariga inta aadan shaqada bilaabin. Shaqada inta aadan bilaabin gaariga waa inaad demisid weeye. Waa in aad u dhigto gaariga taako adagna waa inaad u dhigtid adoo ka shaqeynayso san u taraarax. Gunaanad ugu dambeyn ciladaha la baarayo haddii aan loo marin hab degan waxaa imaan kara cilad cusub ama dhibaato hor leh. Yani cilada abaarayso haddii aadan si degan iyo nidaam aad u marin waxaa ku imaan karta dhibaato hor leh ama dhibaato cusub. Sida agabku u kala mudan yahay ayaa loo kala baaraa. Sida hore usoo sheegnaba cilada markaa baaraysid shayga ka baaraysid ama yani si u kala mudan yihiin si u kala horeeyaan ayaa loo kala baaraa. Baaris xumadu waxay horseedaa cilad cusub. Yani inaa shayga si khaldan u baartid ama wada khaldan martid waxay keenaysaa cilad cusub inay dhacdo. Dhammaad casharkeena intaasuu ku ogyahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa ku kulano casharkan iyo casharka xiga. Aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.